Somalia. 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 Soomaaliya hay israacdo hamidooda ilaahay idankiisa dhalinyaro aad iyo aad ayay mar kale farxad ii tahay inaan isu nimaado idinla kulmo maalintii xeradii tababarka lagu xiraayay aan isugu tagnay waxaa idinka ballan qaada u malaynayaa inaan kulankeena dambe xamar isku arki doono iyo Soomaaliya waa kana waan idin nimiday in badan oo waqtigeena ka mid ana waa idinku soo noqon doona haddii la yiraa inaan xaaladiina iyo meesha ku nooshihiin aan aragno ayaan u nimaaday waa ku faraxsanahay meeshaan xiradan xira weyn oo taariikh fog ku leh ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waaye nasiib wanaag maanta inay dib u soo noqoto oo ay saan u bilanto aad iyo aad ayay noo farax gelinaysaa dhalinyaradan ay joogto dhismayaashuna ay sidaa u yaalaan waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto inaan idin bogaadiyo idin mahad celiyo iyo inaan idin sheego hawsha ballaaran ee idin sugaysa amniga caasimadda ayaad qayb ka tihiin dad badan oo xoogga dalka Soomaaliyeed leh oo booliis leh oo nabad sugid leh oo shacab leh oo maamul degmo iyo maamul maxaan ku raadhaa waaxid iyo maamul leh ayaa amniga caasimadda ka wada qayb galaya idinkuna qaybaad ka tihiin haddii la yiraahdo waxaan aad iyo aad u rajaynayaa roolka doorka aad leedihiin mid lagu daysado inuu noqdo oo dadku ay ku farax geliyaan askari Soomaaliyeed oo amnigooda sugayo oo taagan marka ay arkaan dadku waa farax gelinaysaa aad iyo aad ay ugu farax geliyaan waxaan rabnaa waxaa u taagan tihiin cadowga waxaa saaxiib la tihiin oo u turaysaan oo u gargaaraysaan oo u naxariisanaysaan dadkiina xushmad iyo karaamo iyo qadarin dadkiinu inay yeeshaan aad rabtaan yeelashadaasi waxay ka bilaabataa idinka inaad dadka ixtiraam u muujisaan inaad muxuu ahay dhowris u muujisaan inaad qadarin u muujisaan markaas kadib ayaa dadkuna ay dareemayaan adduunyaduna ay u dareemaysaa dadka Soomaaliyeed dad macno leh oo qiimo leh inay yihiin intaasoo dhan furaha iyo albaabka laga galo waa adinka waa u taagan tahay naftaadaad u soo hurtay waa u dhimanaysaa waa u dhaawacmaysaa inaad marka aad ixtiraami weyso dadku ayagaaba ku jecel oo ku rabo oo ku soo dhaweynaya laakiin de qofka fiican asaa socda ixtiraamkana dhinaciisa ka garanaya laakiin mid xuna ku dhex jiri kara mid xoogaa muxuu ahaay maskaxdiisu ay si tahay ayaa ku dhex jiri kara kuwaas waayo kuwa la rabo inaad daadisaan oo aadan ku caroonina oo aadan maxaan ku raaci qaabinina oo aad hadduu caraysan yahay maanta aad tiraadid raalli ahaw adiga muxuu ahay saas ma ahay waayeelka caruurta iyo dadka qaba baahiyaha gaarkaana inaad mar walba gacanta qabataan ood u gargaartaan waa isku soo celceliyo warku wuxuu ku dhan yahay dadkiina u naxariista cadowgiinana ku dhiiranaada labadaas un waayo waxay ka kooban intaasoo dhan markaad ciidan tihiin mid baa isku fuuqsata midda isku fuuqsata waa maxay waa discibliin iyo kala dambeyn sarkaal xigeenka madaxda ku ah horjoogahaaga in aad awaamirtooda aad dhegaysato waaye saraakiishu waa tiro aad iyo aad u yar ciidankuna waa tiro aad iyo aad u badan ciidanku askari walba sida uu rabo sarkaalku iskuma aadi karo askarigan muxuu rabaa saan kana muxuu rabaa saan kana muxuu rabaa saan laakiin sarwaalku wuxuu ka shaqayn karaa waxa askarta danta u ah nidaamka u ah quruxda u ah sharafta u ah dantooda caamka iyo masaalixdooda caamka ayuu sarkaalka shaqayn karaa idinka marka ka ciidan ahaan askari ahaan maxaa karaa inaad sarkaalka isku jimaysaan ood raacdaan taliyaha muxuu yiri awaamirtu maxay ahayd sidee u arkaa inaad raacdaan oo aad awaamirta saas waana muhiimadda iyo mabda'iyan discibliinku inta uu leeyahay waa askar iyo ciidan xooggiisu kama soo sako maraan discibliin
hub waaweyn iyo taangiye iyo gantaalo haddii aad haysato xataa laakiin discibliin iyo ismaqal iyo kala dambeyn aanay jirin gantaalahaagu waxba ma taraan iyo xabadaada faraha badan ood haysato waxba ma taraan laakiin markaad tiro yar tahay laakiin aad ismaqlayso ood kala dambeyn leedahay oo discibliin aad leedahay cid walboo xoogan adaa ka badan sidaas ayaana sunnadu nolosha tahay sidaas ayaana awaamirta ilaahay ay tahay qur-aanka aada iyo aad ayaad u taqaanaa kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atin kathiir aayaadka qur-aanka soo maha meeqo kooxoo yar ayaa ka adkaatay oo ka xoog badnaatay oo ka guulaysatay kuwo fara badan farqiga waa maxay kooxda yartaa berigaa aayaadku ay soo degayeen dad yar oo tiro yar oo muslimiin ah oo diinta islaamka xarigga ilaahay inay isla qabsadaan isugu xirmay oo mabaadi' leh oo kala dambeyn leh oo isdhowris leh oo isdhegaysi leh ayay ahaayeen gaaladuna kuwa aada iyo aada u fara badan laakiin wax gaar oo ka dhexeeya mid walba soo aarso mid u socdo mid xoolo soo helo xoolo soo dhaca u socdo mid maxaan ku rahaa qabiilkaaga magaciisa kor u qaad oo u socdo midba wax gooniya u socdo magagoodii iyo tira badnaantoodii waxba ma tarin maanta marka adduunyada casrigaa sidii oo kale waxbaa idinka dhexeeya waxbaa isku kiin xiraya dowladnimo ciidannimo islaamnimo dadnimo waxbaa isku kiin xiraya aada iyo aad ayaad uga adkaanaysaan cadowgiina shabaab khawaarijta waxaa isku xiraa aragti iyo fikir been ah oon waxba ka jirin oon diinta meel ku lahayn oon dadnimada meel ku lahayn oo adduunyada iyo nolosha casriga aan meel ku lahayn waayo waxa isku xiraya adiga laakiin wax rasmiha isku kaa xiraya diintii xaniifka ahayd oo dhabta ahayd oo islaamka isku kaa xiraysa dowladnimadii oo sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed oo dhan kor inay aada rabta ayaa isku kiin xiraysa amnigii iyo sharaftii iyo karaamadii hooyada aabbaha walaalka deegaankaaga dadkaagi yaa isku kiin xiraysa wax badan oo aada iyo aada muhiim u ah oo isku kiin xira ayaad leedihiin dhowra waxaana sida aad ku dhowri kartaan waa discibliin kala dambeyn ismaqal isu gargaarid walaalkaaga saaxiibkaaga ku garab taaga ee laga yaabay inaadan hore isu aqoonin ee ciidanka aad isugu timaadeen bes asaa walaalka ah haddaad dhaawacanta asaa ku qaadayo isagoo hadduu dhaawacmay adaa qaadayo haddii cadowga uu soo xoogayso asigaad iskaashanaysaan ood wax isla difaacaysaan kala carari maysaan iskhiyaani maysaan isisiri maysaan waa walaalkaa marka taas waxay daliil u tahay xarig aanan furo karinaa yaa isu kiin haya oo idinka dhexeeya marka waxaan rabaa dhalinyaro waa guulaysanay ilaahay idankiis marba idinku haddaad joogtaan waa guulaysanay ilaahay idankiis guushaas aan ka dhabayn amniga caasimadda ayaa hadda idinku xilsaaran tihiin booliiska dableyda militariga booliiskiisaa tihiin booliisaa tihiin booliiska militarigaa tihiin laakiin maanta maxaa tihiin booliiskii dadkaa tihiin dadka soomaaliyeed hooyada soomaaliyeed ee baqaysa ninka ganacsadaha ee ganacsada ee tahdiidaadka iyo cabsigelinta lagu hayo odaga nabadoonka ah ee dadka nabadoodii iyo wanaagoodii aan ka tali karin ee tahdiidaadka iyo cabsigelinta iyo lagu hayo dadka dhan oo sidaa cabsigelinta iyo argagaxa loogu hayo ayaad booliis u tahay amniga caasimadda ilaahay idankiis muddo kooban waa soo gunaanadi doonaa kadibna meel kastoo shabaab jiro iyo juqda iyo duurkan u daba kici doonaa waxaan rabaa kala dambeyntaas ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsantihiin laakiin maanta waxaa u shaqaynaysaan magaalo ninkii ka shaqeeyaa waa booliis sidiisaba marka sidii booliiska u shaqaynaysaan booliiska la shaqaynaysaan nabad sugidda la shaqaynaysaan degmada iyo waaxda iyo xaafadda iyo fallarka ayaad la shaqaynaysaan u adeegayo dadka soomaaliyeed ayaa tihiin maalin walba doorka aad taagan tahay inaad cayaarto waay maalinaa imaan doonta tiradiinaan faraha badan howlo badan ay kala qabtaan isgoys kasta 2 askari oo bulisi militara ay taagan tahay oo ay ilaalinayaan bas ciidan baabuur ciidan ama askari ciidan oo si xun u dhaqmay ay ilaalinayaan
laakiin amnigii dadka ay maxaan ku yidhahdaa booliiska kale ay hayaan maalintaas waa soo dhowdahay maalintaasaan rabnaa marka inaan gaarno oon gaarsiino maanta kala ma lihin nin orod ku roon iyo nin aayad ku roon allaya awrtiyuu yiri mugta ciddii reerkii awrtu ay ka dhuntay maanta meeshaasay naga taagan tahayoo nin walbooba waxaad tahay iyo waxaad ku roon tahayba amniga caasimadan maanta meesha u taagannahay muqdisho waxay soo martay magaalo ammaan ah waxay soo martay in la yiraahdo waa magaalada Afrika ugu ammaan badan in la yiraahdo ayay soo martay waxay soo gashay mar daba maanta ay soo hadda taagan tahay in la yiraahdo meelaha ugu qatarsan ugu ammaan daran ugu cabsida badan waay waa la dhihi jiray laakiin hadda ma waa ka soo soconnaa marka laakiin Soomaaliya hay israacdo hamidooda ilaahay idankiisa maanta marka muqdisho waxay ka soo baxaysaa muqdishadii shalay way socotaa xoogga iyo awoodda iyo enerjiga iyo motorka riixaya oo duruuftii shalay ka saaraya ee duruuftii qurxooneed ee shalay ay lahayd u celinaya ee amni magaalada muxuu ahay Afrika ugu amni badan iyo magaalada Afrika ugu nadiifsan iyo magacyadii ay lahaan jirtay muqdisho u soo celinayo waa idinka iyo kuwa qeyrkiina walaalihiina ah ee jooga ciidanka ka tirsanay amniga caasimadda maanta u taagan dhalinyaro guul iyo wanaag yaan idin rajaynayaa haddaad noolaatana cizi iyo sharaf iyo karaamo ayaad ku dhimanay haddaad dhimatana wax aad garanayso oo taqaano dadkuna ay garanayaan oo yaqaanaan ayaad u dhimanay ama u dhaawacmay Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar mar kale iyo mar kale waa idin bogaadinayaa waa idin hambalyaynayaa dhammaanteen aniga oo madaxweynaha jamhuuriyadda ah aan ugu sarreeyo iyo islaanta yaanyada jidka ku gadanaysa iyo wiilka yarka ee iskoolka elementaryga dhigta ee saaka iskuulka u sii kalahaya dhammaan adinkay idin soo eegayaan maxay idinka soo eegayaan sharaf iyo karaamo inay ku noolaadaan inaad u horseedaan idinka soo eegayaan garabkiina Allah galo howlihiina Allah idin fududeeyo waana dhowdahay waa waqtigii ciriiriga ahayo alaysa subhu biqarib la yiro kale taagan tahay waa dhowdahay guushi iyo maalintii Soomaaliya barwaaqada iyo nabadda iyo quruxda iyo ilaaha dhulna sii ilaaha nimcana sii dhul wanaagsan bad leh berri leh bar xoolaad leh dad fiican leh yaan leenahay bas niman cadaw ahaa raba inay waxa quruxda badana iyo nimcada uu ilaahay nagu hibay inay naga qaadaan ama naga qarribaan rabo waa kuwa u taaganahay waa ka guuleysanay inta dhimana waa dhamaystireena dhalinyaro aad iyo aad u maasantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh